Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkii tobanleyda barnaamijkeena maanta tobanleyda waxaan ku qaadan doonaa tobanka magaalo ee ugu quruxda badan Afrika waa kuma magaalada ugu quruxda iyo bilicda qurxoon Afrika inkastoo Afrika lagu tiriyo inay tahay qaaradda ugu saboolsan qaaradaha adduunka haddana waxaa jira magaalooyin aad u qurux badan kuwaas oo ka qurux badan xitaa wadamada adduunka maanta waxaan qaadan doonaa wadamada Afrika magaalooyinka ugu quruxda badan tobanka magaalo ee ugu quruxda badan nala soco isha ku haay magaalada tobnaad waxaa ka mid ah magaalada la yiraahdo Luanda. Luanda waxay ku taalaa wadanka Angola waana caasimadda labaad ee wadankaasi waxay ku fiican tahay wax soo saarka saliidda waxaana ku taalaa dekedda ugu weyn ee wadankaasi sidoo kale waxaa ku yaala xarunta maamulka ee wadanka laga armiyo magaalada sagaalaad waa magaalada la yiraahdo Akaadir. Akaadir waxay ku taalaa wadanka Morocco. Akaadir waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka Morocco. Magaalada ayaa dib loo dhisay kadib dhulgariirkii dhacay 1960kii. Hadda waa marinka ugu weyn ee badda Morocco. Sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay dhanka iyo dalxiiska. Magaalada sideedaad waa magaalada Nairobi. Nairobi waxay ku taalaa wadanka Kenya waana magaalada ugu weyn ee dalka iyo sidoo kale caasimadda wadanka Kenya. Magaaladan ayaa ah magaalada ugu dadka badan magaalooyinka ku yaala bariga Afrika. Sidoo kale waxay aad ugu fiican tahay dhanka maamulka, siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalaha. Waana magaalo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn weliba qaaradan Afrika. Magaalada toddobaad ee ugu qurux magaalooyinka Afrika waa magaalada Cape Town. Cape Town waxay ku taalaa Koonfur Afrika. Waa magaalada labaad ee ugu dadka badan Koonfur Afrika markaad joogtid. Waxay caan ku tahay dekedo iyo weliba waxay sidoo kale caan ku tahay dalxiiska caalamiga ee loogu imaado wadamada caalamka. Magaalada lixaad ee magaalooyinka ugu quruxda badan qaaradda Afrika waxaa soo gashay magaalada la yiraahdo Qaahira. Hoyga ilbaxnimada Qaahira waa caasimadda dalka Masar waana magaalada ugu weyn bariga Afrika iyo magaalada labaad ee ugu weyn Afrika kadib markii laga reebo magaalada Lagos. Magaaladan ayaa ah magaalooyinka ugu horeeyay Afrika laga aasaasay waxaana lagu magacaabaa hoyga ilbaxnimada Afrika. Magaalada shanaad ee ugu quruxda badan magaalooyinka Afrika waa magaalada la yiraahdo Port Louis oo ku taala wadanka Mauritius. Magaaladan ayaa ah caasimadda dalka Mauritius waana magaalo ku fiican dhanka dhaqaalaha wax soo saarka. Magaaladan ayaa ah magaalo loo soo dalxiis tago inta badan wadamada caalamka ay ugu badan yihiin weliba wadanka Faransiiska iyo wadanka Ingiriiska. There are five things you didn't know about Mauritius. One, no indigenous population. Mauritius has been influenced and settled by several world powers, like the French, East African, the British, and the Indian. As a result, the 1.3 million locals are multi-ethnic, multi-religious, and multilingual, who all live together on an island that's just 28 miles wide by 40 miles long. It's the most densely populated country in Africa. Two, their language is Creole. Almost everyone speaks three. Magaalada afraad ee ugu quruxda badan magaalooyinka Afrika waa magaalada Daarusalaam. Daarusalaam waxay ku taalaa wadanka Tanzania waana caasimadda wadanka Tanzania. Waa magaalada ugu weyn dhanka ganacsiga ee magaalooyinka waaweyn ee ku yaala danka Tanzania. Magaalada saddexaad waa magaalada Abuja. Abuja waxay ku taalaa wadanka Nigeria. Abuja waa caasimadda dalka Nigeria waxaana la dhisay sanadkii 80-meeyadii ka hor intaan la dhisin magaalada Lagos. Inta ay tahay magaaladan ayaa ah midowga xarunta ee ku yeesha wadanka Nigeria.
magaalada labaad waa magaalada tunis. Tunis waxay ku taalaa waddanka tunisia, waana caasimadda iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka tunis. magaalada koowaad waa magaalada johannesburg. shaki kuma jirto johannesburg inay tahay magaalada ugu qurux badan africa, waxayna ku taalaa waddanka koonfur africa, waana magaalada ugu weyn uguna quruxda badan koonfur africa, waxaana lagu yaqaanaa dhanka dhaqaalaha africa, waxaana sidaas oo kale ay martigelisay koobkii adduunkii ee ka dhacay waddanka koonfur africa 2010, waana magaalooyinka ugu waaweyn ee koonfur africa. intaan ayaan kusoo afmeeraynaa 10kii magaalo ugu quruxda badan africa. intaan barnaamij noocan oo ku kulmi doono nabadiina.